kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo alaabad noga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan waxa kamid ah dagaal xoogan oo ka socdo magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ciidamada PSF ee Maxamuud Diyaano uu hogaaminayo oo go'aansaday in dagaal ay la galaan ciidanka amniga ee Puntland khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalka iyo wararkii ugu dambeeyay ayaanu idin soo gudbin doonaa duqa magaaladaasi Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo dawladda federaalka ku eedeeyay dagaalka ka bilowday magaalada xilli shacab badan lagu soo waramayo in halkaasi ay ka qaxeen madaxweyne Farmaajo oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xilli maalmihii la soo dhaafay safar uu ugu maqnaa waddanka Turkiga dhanka caalamkana xukuumadda Abiy Ahmed waxa ay jawaab ka bixisay go'aankii lama filaanka ahaa ee kooxda TPLF ka soo baxay qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelino aynu ku horeynaa daawadayaal warar dheeraada ayaa ka soo baxaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari xilli halkaasi uu ka socdo iska horimaad u dhaxeeyo ciidanka amniga Puntland iyo ciidamada daacad u ah agaasimihii hore ee ciidanka PSF Maxamuud Cusmaan Diyaano labada dhinac ayaa isku adeegsanaya rasaas culus oo laga maqlayo xaafadaha magaalada Boosaaso waxaana xaafadaha xabadda ka socoto ka qaxaya dadka shacabka ee hore halkaasi u deganaa lama ogo cidda bilowday dagaalka u dhaxeeyo ciidanka Puntland iyo ciidamada daacadda u ah agaasimihii PSF ee dani uu xilka ka qaaday Maxamuud Diyaano hase yeeshee wararku waxay tilmaamayaan in ciidanka Puntland ay weerar ku qaadeen taliska guud ee hay'adda PSF halkaasi oo isku urursadeen ciidamada PSF dagaalka ayaa saameyn ku yeeshay xarunta ciidamada PSF madaxtooyada Boosaaso iyo aagga u dhow iyadoo ciidamada dagaalamayo ay yihiin kuwa aad isugu dhow difaac ahaan marka la eego ciidamada PSF ayaa la sheegay in duqeyn xoog leh ay u geysteen xarunta madaxtooyada Boosaaso taasi oo keentay inay isaga baxaan ciidamadii daacadda u ahaa Saciid Dani ee halkaasi ku sugnaa waxaa la soo sheegayaa in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay iska horimaadka socdo weli lama ogo khasaaraha dhabta ee ka soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamayo wadahadallo muddooyinkii ugu dambeeyay loogu jiray in lagu soo afjaro xiisadda Boosaaso ayaa lagu guuldareystay kadib markii labada dhinacba ay ku heshiin waayeen go'aano ka soo baxay isimada Puntland iyadoo Saciid Dani uu ahaa kan ugu horeeyo ee go'aamadaasi marka hore diiday dhanka kale duqa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari mudane Cabdilqani Deeraadile ayaa dawladda federaalka ku eedeeyay dagaalka ka socdo magaaladaasi waxa uu sheegay in dagaalka saaka ka bilowday magaalada Boosaaso ay ku lug leedahay dawladda Soomaaliya isagoo sheegay in ciidanka gorgor ay hoobiyaal ku garaaceen xaafado kamida magaalada kuwaasi oo khasaare gaarsiiyay dad shacab ah oo guryahooda ku sugnaa duqa Boosaaso ayaa sidoo kale dagaalka qaxa iyo xaaladda cakiran ee Boosaaso dusha ka saaray taliyihii xilka laga qaaday ee ciidanka PSF Maxamuud Diyaano kaasi oo ka hor yimid xilka qaadistiisa waxa uu tilmaamay inuu mas'uul ka yahay dadka waxyeelada ay ka soo gaartay dagaalkaasi iyo dadka danyarta ah ee guryahoodii isaga barakacay maanta waxa uu dhanka kale carabka ku dhuftay inay jiraan kooxo shisheeye oo dagaalka sii hurinayo kuwaasi oo gacan siinayo ciidamada PSF tan iyo markii xilka laga qaaday taliyihii ciidanka PSF ee Puntland waxa ay soo tirayay iska horimaadyada iyo khilaafka cirka isku sii shareerayay ee u dhaxeeyay taliska PSF iyo madaxtooyada maamulka Puntland shacabweynaha reer Puntland gaar ahaan reer Boosaaso waxaan u sheegayaa magaalada Boosaaso in ay dib ka wadaan iyo dagaal raba inay ka abuuraan koox amardiid ah oo diiday inay xilka wareejiso oo ciidamo ah kooxdaas oo hadda sida ay sheegteen inay ka mid yihiin ciidamada gorgor waxay qas ka wadaan magaalada iyo fawdo ilaa shalay waxay bilaabeen inay la dhacaan dadka xabado maanta waxay bilaabeen inay hoobiyaal la dhacaan xaafadihii dad masaakiina waxba aan galabsanna ay waxyeeleeyaan iyagoo ulajadoodu ay tahay inay magaalada
ka abuuraan carqalad dagaal iyo barakac iyo rabshado iyagoo ugu gabanaya in ay iyagoo ugu gabanaya amar diidada ay sameeyeen dowladda Puntland waxay muddo bil ah u dulqaadanaysay oo waan ka waday amar diidada ay sameeyeen kooxdaas waxaan u sheegaynaa shacabka reer Boosaasood dowladdu wax badan bay dulqaadatay wax badan bay waan iyo nabad hawshaas ka gashay waxa bilaabay xabad inay dadka xabadayaan hubiya la dhacaan kooxdii amar diidka ahaa kooxda amar diidka ah waxaan u sheegaynaa bulshada reer Boosaasood in dowladdu ay talaabo ka qaadayso waajibaadkoodana ay helayaan haddii aysan ka waantoobin dhibta ay ka wadaan magaalada Boosaasood waxaanu shacabka reer Boosaasood ugu baaqaynaa inay dowladooda la shaqeeyaan dowladdu inaysan dib wadan inay muddo badan ka leexleexanaysay inuu magaalada Boosaasood dhib ka dhacdo ayna hadda iyagu khasbayaan inay bilaabaan rabshado ka abuurma magaalada Boosaasood kooxda amar diidka ee sheeganaysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan oo lagu adeeganayo loona adeegsanayo carqaladda iyo rabshadka abuurka deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaan u sheegaynaa shacabweynaha reer Boosaasood in dowladdu ay mar walba talaabada ay qaadayso ay tahay oo ay shacabka ugu turayso ayna mar walba awaamiirta iyo shuruucda u yaala dowladda Puntland ay fulinayso digreeto iyo bedelaad iyo xilka qaadis iyo xilmagacawd la diidi karo oo qof xil laga qaaday oo diidi kara ma jiro waa sifo sharciya weeye amar diidada ay sameeyeen bay waxay ku abuureen buuq iyo rabshado buuqa iyo rabshadahaas waxay ku talagaleen inay dadka barakiciyaan shacabka laayaan dhibaateeyaan shacabku dowladooda ha garab istaageen hana la shaqeeyeen dowladuna uma dulqaadanayso koox meel gashay oo gacmo shay ku jiraan oo shacabka dhibaateynaya inay meeshaas sii joogaan uma dulqaadanayso meelaha ay joogaan baa lagu tagayaa hal guri bay ku jiraan halka guri bay ka dagaalamayaan hoobayaal meel ba ku rideen dhibaatada shacabka ay u geystaan waxa ka mas'uula kooxda amar diidka oo uu hormoodka u yahay maxamuud cusmaan diyaano waxaan u sheegaynaa shacabka dhibta cidda wadda inay tahay kooxaha la soo abaabulay amar diidka ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan waxa ay sameynayaan oo iyo rabshadaha ay wadaan iyo dagaalka ay ka horinayaan magaalada Boosaasood haddii ay si degdeg uga waantoobi waayaan dowladdu waxay qaadaysaa talaabo sharci qaadaysaa dowladdu muddo dul qaadanaysay hadda muddo bila bay maraysaa intii loo dul qaadanayay waa waantada la sugayay wax walba oo lagu dhameeyo oo waan noqoto oo sharciyada la waafajiyona iyaga ayaa diidayay iyaga oo leh dana kale iyo afkaar kale oo ummad kale u adeegaya magaalada Boosaasood ama dowladda Puntland uma dul qaadanayso cid gacmo shisheeye oo ka baxsan Puntland u adeegaya talaabo sharci ka qaadi doonta dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay weheliso marwada koobaad ee dalka marwo Seynab Cabdi Macalim iyo wafuud kale ayaa dib dalka ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo ugu maqnaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga halkaasi oo kaga qayb galay shirweynihii saddexaad ee iskaashiga Turkiga iyo dalalka Afrika madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Istanbul waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee ku qotomo dhinacyada iskaashiga amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo siyaasadda sidoo kale waxa uu shirdoceedyo la qaatay madaxdii ka qayb gashay shirweynaha oo ay ka mid ahaayeen madaxweynayaasha dalalka Rwanda mudane Paul Kagame iyo waliba sidoo kale hogaamiyaha dalka Liibiya mudane Maxamed Al-Menfi dhanka kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga isaga oo ka dhageystay warbixino ku saabsan xaaladooda nololeed madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa iska fogeeyay ceeb uu meel fagaaraha ku dhex joojin lahaa dhigiisa Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kadib markii uu isku dayay in uu kaftan ka dhigo boobka doorashada xilli ay ka wada qayb galeen munaasabadda xuska sanad guuradii saddexaad ee doorashadii madaxweyne Laftagreen
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo u muuqdo in uu qarinayo boobka doorashada naftiisana ceebaynayo ayaa sheegay in wixii eed ahaa ee doorashada la xiriiray ay 80% qaateen isaga iyo dhigiisa koonfur galbeed cabdilcasiis laftagreen. qoorqoor ayaa kadib ugu baaqay madaxweynaha puntland siciid deni inuu doorashada bilaabo oo uu dowlad goboleedyada kale la qaybsado eedaha 20% ee dhiman. hase yeeshee deni ayaa iska leexiyey hadalka qoorqoor isagoo tilmaamay in aanu raaci doonin waddada ay u mareen doorashada isaga iyo laftagreen balse uu wax fiican qaban doono. kadib hadalladaasi kulul ay isdhaafsadeen madaxweynayaasha puntland iyo galmudug waxaa isaguna gebagabadii goobta ka hadlay madaxweynaha koonfur galbeed isagoo isku dayay inuu dib ka saxo hadalkii qoorqoor. madaxweynaha koonfur galbeed cabdilcasiis laftagreen ayaa intaasi kadib waxa uu isku dayay qoorqoor inuu ka saxo hadalkii gefka ahaa ee uu galay. qoorqoor iyo laftagreen ayaa ah labada madaxweyne goboleed ee sida ugu daran u boobay doorashada marka la eego hadallada ka soo baxayo guud ahaan xubnaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka. koonfur galbeed marka laga soo tago in kuraasta dad gaara loo xiray haddana waxaa dib loo celiyey kursigii loo diiday inuu u tartamo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari. dhanka galmudug waxaa si muran ay ku jirto lagu soo saaray agaasimaha nisa yaasiin farey iyadoo oo loo diiday in lagula tartamo halka somalilanna ay soo baxeen xildhibaano dood laga keenay lana hakiyey sababo la xiriiro boobka doorashada. ugu dambayntiina daawadayaal xukuumadda ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku gacan sayrtay go'aankii ay ku dhawaaqeen mucaaradka Tigray ay kaga baxeen gobolada deriska la ah ee Afar iyo Amhara. tallaabadan lama filaanka ayaa dhabaha u xaari kartaa xabad joojin la gaaro kadib 13 bilood oo dagaal qaraar uu ka socday waddankaasi. hase yeeshee afhayeenka Abiy Ahmed ayaa ku gacan sayrtay ku dhawaaqista mucaaradka ay ku qeexday mid lagu qarinayo guuldarrooyin militari. dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa ka falcelisay go'aanka Tigray waxaana afhayeenka waaxda arrimaha dibadda uu sheegay in haddii la xaqiijinayo dib u gurashada TPLF ay tahay arrin ay soo dhaweynayaan. warqad uu u diray qaramada midoobay ayaa hogaamiyaha TPLF Gebremichael waxa uu ku baaqay in hawada gobolka Tigray laga dhigo aag duulimaadyada ka caagan cunaqabatayn hub oo lagu soo rogo Itoobiya iyo xulufadeeda Eritrea iyo in la dejiyo hab ay qaramada midoobay ku xaqiijin karto in dhammaan ciidamada bannaanka ka yimid ay ka baxaan Tigray. qaramada midoobay ayaa hore dowladda ugu eedeysay inay xayiraad ku soo rogtay gobolka eedayntaasi oo dowladda ay beenisay. hindisooyinka kale ee ku jiray warqadda loo diray qaramada midoobay ayaa waxaa ka mid ahaa in la sii daayo kumanaanka qof ee maxaabiista siyaasadeed ee Tigrayga ah ee u xiran dowladda iyo weliba in baarayaal caalami ah ay raadiyaan kuwa ka mas'uulka ah dembiyada dagaal. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminkii idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.